Ku soo dhawaada barnaamijkeena la yaabka isbuuca. Waxaan ku soo qaadanaynaa maanta askari cunay 40 mindiyood oo qalin lagu sameeyay. Dalka Hindiya oo ka mid ah wadamada ugu badan dunida ee ka dhacaan dhacdooyinka la yaabka leh ayaa toddobaadkii hore waxaa la baahiyay sawiro argagax leh kadib markii qalin lagu sameeyay askari ka tirsan booliska wadankaasi kaasoo lagu magacaabo Surjit Singh. 42 jirkaan ka soo muuqday cusbitaalka Rohbeta ee magaalada Hyderabad ayaa calooshiisa laga soo saaray 40 mindiyood kuwaasoo uu liqay muddo 2 bilood ah balse markii dambe ku keentay xanuun kaliftay inuu u tago goobo caafimaad. Surjit ayaa kalkaaliyaasha caafimaadka u sheegay inuu ka dhibaatoonayo dhinaca caloosha waxaana dhaqaatiirta u direen raajo ama X-ray taasoo keentay in shaashada laga arko sawiro aan noociisa la arag. Ninka oo muddo 5 saac ku jiray qalliin ayaa lagu guuleystay in calooshiisa laga soo saaro tiro mindiyo gaaraya 40 xabo taasoo keentay in su'aalo badan la weydiiyo xilli uu soo naaxay. Wuxuu sheegay isagoo la hadlaya The Guardian, ma garan karo sababta igu kaliftay laakiin waxa i jiidanayo waxyaabo aan awoodi karin xakameyn karin. Runtii waa ii macaantay markii liqayti ugu horeysay balse muddo kadib waxa ii noqotay caado laakiin xanuun daran ayay igu keentay. Sinha oo si hadlay ayaa sheegay inuusan dib dambe u noqon doonin haddii uu ka badbaadiyo halista adag ee uu naftiisa galiyay. Dhaqaatiirta qalliinka sameynaysa ayaa isna warbaahinta u sheegay in dhacdadan ay tahay markii ugu horeysay ay la kulmaan isagoona xusay in xaaladiisa caafimaad hadda ay soo hagaagayso. Arrintan ayaa si aad toddobaadkan loogu falanqeynaya warbaahinta caalamka kuwaasoo siyaabo kala duwan u fasiray dhacdadan oo ka mid ah dhacdooyinka mucjisooyinka dalkaasi ka dhacay ee wadanka Hindiya.